السلام عليكم muuqaalkeena maanta cinwaankiisu waa hooyo jacaylkeena koowaad. haddaba intaan guda gelin muuqaalka like nagu dhiirigeli, oraahdaada commentigiina ugu reeb, subscribe noo saar, lana wadaag asxaabtaada. mahadsanid. hooyo waa tiirkii nolosheena, waa aas-aaskii jiritaankeena, waa qofta inoo samaysa wax walbo, teedana mar walba ka hormarisa teena. hooyadu waa ruuxa dadkoo idil markay naga quustaan, mar walba inoo heelan, gar iyo gardaraba heeganna inoo ah. hooyo waxaan ku sifayn karno tilmaan looga dhigi karo ayaanba jirin. barbaarinteeda, naxariisteeda, daryeelkeeda iyo abaalkeeda lama gudaanka ah oo ay inoo samaysay hooyo. ماما حبيبتي أنا فقت. ماما أنا فقت، صرت منيحة حبيبتي. ماما ماما waa dareen kala dareemayo xilliga aan garabkeena ka weyno hooyo. haddayba tahay iyada qoraxdii iftiiminaysay adduunkeena, waa ayba tahay waxa ayn geli doonaa mugdi maalinkii koonkan inagu cudlayso ayna ka galbato dunida hooyo. mar kale aan isla eegno muuqaal labaad muujinaya xilliga caruurnimada waxa aan ka aaminsannahay inay hooyo inoo tahay. А у тебя девушка есть уже какая-то? Да? sidaad aragtaanba waa show ka mid ah shooyada loo qabto carruurta. wiilkan yar waxaa la weydiiyey, waatay gabadhaad ugu jeceshahay dunida? waxa uu ku jawaabay, waa hooyo. waana sax, waayo hooyo waa jacaylkeena koowaad. waxaynu aaminsaneen yaraanteena inuusan qof kale jirin. haddaynu oyno, haddaynu bukono, haddii aynu daryeel u baahno, iyada un inaan ka heli karno. haddii aynu gaboobno, weli jacaylka hooyo ma inaga suulayaa? maxaanse ka aaminsannahay hooyo? waa muuqaal yar oo inoo caddaynaya midda waana midka aan kusoo gabagabeynayno muuqaalkeena guud ee maanta. ila daawada. We never went to bed hungry. Mama kept a roof over our head. When she got out, she kept children. She baked sweet potato pies. She cooked for people. She found another way to generate income for us. waa qof da' waxa uu ka hadlayana waa hooyo qiimaheeda. dareenka ka muuqdayna waad qiyaasi kartaa inuu yahay mid qiiraysan, turjumayana xiisaha iyo qiyamka ay ku leedahay hooyo. muuqaalkani inta ayaanu kusoo afmeeraynaa. inta aan muuqaalkan muuqaal xiga ku kulmi doono waxaan idinka tegaynaa. asalaamu calaykum.